heshiiskii ahaa dekeda berbera ama saaxil area la rabay in lagu siiyo shirkadda oo qalad ka yimi qaladkii waxaa qayb ka ahaa madax sare oo dowladda federaalka ah iyo madax kale oo iyana Somaliland ah marka waxa weeye heshiiskii sida ahaa heshiiskan dhalay oo ah kan ciidanka loo sameeyay military base loo siinayo imaaraadka kaasi qalbiga xafiiskii waxa weeye wuxuu ilaaliyaa hantida qaran oo ah bad iyo deked iyo airport iyo xuduudaha iyo waxa hantida buurtada waxa heshiiskaas waa khalad dadka xildhibaanada ah ee Somaliland waxa loo qeybiyo nuqul aan lahayn intestaata aan lahayn oo aan lahayn la kaheerkii heshiiskii la kala saxiixday iyo saxiixyadii waa laga qariyay waxa weeye ummadda deegaanka degan heshiiskana xigadu buu ka yahay danta ummadda iyo dalka guud ahaan toona lagama eegin shakhsiyaad baa galay iyo la galay iyagoo ka eegaya dantooda gaarka ah يعني مرسي سوقاتين شرعي معهن وح أي مد أقواني سنة مرة